kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararka ugu dambeeyay ee dhambaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya hogaamiyaasha dowlad goboleedyada qaarkood oo ka hor yimid qorsho uu wado madaxweyne xasan sheekh maxamuud khilaafka soo ifbaxay ee labada dhinac kadib kulankii wadajirka ahaa ee 5 sano kadib ka qabsamay madaxtooyada dalka beesha hawargadir oo sheegtay inay bilaabayso dadaalkii ugu dambeeyay ay kaga falcelinayso weerar afka ah oo ku qaaday sida ay sheegeen Fahad Yaasiin Xaaji Daahir xagee xaaladiisu ayay ku dambaysaa wadahadalada dalalka Turkiga iyo Qatarna xagee marayaan dowladda Kenya waxay iska diiday laba arrimood oo Soomaaliya ay ka dalbatay waxaana muuqda in ay ku adkeysatay qorshaha ay Soomaaliya ka leedahay fadhiga baarlamaanka Soomaaliya ma ka soo hor muuqanaya madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xildhibaanada gulufka ugu dambeeyay bilaabay iyo kuwa firimbiga soo qaatay ee dib u xasuusanaya muddo kadib sidii ay u mucaaradi jireen Farmaajo Muuse Biixi waxa uu magacaabay guddiga cusub ee doorashooyinka xilli xiisadu ay weli cirka isku sii shareerayso isla markaana xisbiyadu ay ku doodayaan in xukuumaddu ay muddo kororsi wado wadamadii ugu dambeeyayna waxa ay qaadayaan qorshaha ay ku cadaadinayaan Somaliland in ay dib ugu laabato wadada deganaanshaha iyo xasiloonida guud inta daawataan waa qayb ka mid ah qodobada wararkeena daawadayaal ku soo dhawaada wararkaas iyo warar kale oo dhameystiran haddii daawadaan ugu cusub tahay subscribe saar qaybta hoose ee channelkan sidoo kalena noo reeb aragtidaada wararkan iyo sida aad jeclaan lahayd in ay isbedel aan ugu sameyno si ay dadka wax u taraan oo ay u noqdaan kuwo xog fiican soo gudbiya ana ku bilownay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo hogaamiyaasha dowlad goboleedyada dalka qaarkood waxay ku kala aragti duwanaadeen qorshaha filla Soomaaliya ee ay ka leedahay dalalka gobolka arintaas oo ay hogaamiyaasha dowlad goboleedyada qaarkood ay ku gacan sayreen saddexda dowlad goboleed ee ku dhisan siyaasadii hore ee Farmaajo ayaa waxay sheegeen in ay u baahan yihiin in miiska la soo saaro qodobo la taaban karo oo loo cuskan karo dib u soo celinta xiriirka Soomaaliya iyo Kenya oo 5 sano ee la soo dhaafay ahaa mid si xumaanayay hogaamiyaasha dowlad goboleedyada Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle ayaa sheegay in bulshada Soomaaliyeed ay dani ugu jirto oo kaliya in la ixtiraamo sidii ay u heli lahaayeen halka ay u dhoofin lahaayeen wax soo saarka dalka gudihiisa iyo sidoo kale in Soomaalidu ay si siman uga faa'iideystaan kheyraadka dabiiciga ah ee dalka waxay sidoo kale laaleen in dana shisheeye un kaliya loogu eexdo heshiisa lala galo Kenya xukuumaddu waxay doonaysaa in ay diiradda saarto oo kaliya sidii ay dib ugu soo celin lahayd xiriirka Soomaaliya iyo Kenya iyadoo waliba ahmiyadda koowaad la siiyay dib u fasaxidda qaadka arintaas oo ah mid Kenya ay dan weyn ugu jirto balse dhaawac ku ah Soomaalida maadaama dhaqaale ahaan iyo sidoo kale caafimaad ahaanba uu qatar weyn ku yahay bulshada hogaamiyaasha dowlad goboleedyadu waxay sheegeen in la sameeyo istiraatiijiyad dhaba oo horseedi karta in Soomaalidu aynan noqonin dad danahooda aan aqoonin balse ixtiraama danaha shisheeyaha arintaasi waxa ay kala aragti duwanaan ka keentay dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda waxaana xogtu tilmaamaysaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uunan si dhaba kaga jawaabin su'aalaha ay hogaamiyaasha dowlad goboleedyadu ka qabeen marka laga reebo in uu hoosta ka xariiqay in qorshihiisu uu yahay Soomaali heshiisa dunidan la heshiis ah waxaa soo ifbaxaya dadaalada iyo sidoo kale carada weyn ee dhinacooda ka imaanaysa beesha ay ka soo jeedaan hogaamiyaal dhowr ah oo siyaasadeed oo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu warbixintiisa ku xusay kadib markii ra'iisul wasaaraha taliyaha ciidanka sirdoonka qaranka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ay ka soo dhex muuqdeen liiska uu Fahad Yaasiin ku eedeeyay inay ka dambeeyeen dilka Ikraan Tahliil Faarax waxa bilowday qorshe beel ahaan looga soo horjeeda hadalkaas isla markaana lagu tilmaamay inuu yahay mid bulshada la iskaga horkeenayo waxay dalbadeen in Fahad Yaasiin iyo dadka kale eedeysanayaasha ah in ay hor yimaadaan maxkamadaha isla markaana ay dhammaantood maraan hanaan baaris oo rasmi ah si loola xisaabtamo cid walba oo doonaysa in ay kaga faa'iideysato dambiye ay gashay sidii bulshada kale ay iskaga horkeeni lahayd waxay sidoo kale sheegeen in dhaqdhaqaaqyada bilowday ay yihiin kuwa haba yaraatee aan horseedaynin in kiisaska qaarkood cadaalad ay helaan sidaa daraaddeedna waxay soo jeediyeen in dowladda cusub ay la timaado istiraatiijiyad kiiskaasi looga gungaarayo kiiska Ikraan Tahliil Faarax
ayaa xaaladiisu dib usoo cusboonaatay kadib markii ay hadleen taliyayaasha ciidanka sirdoonka iskaga dambeeyey islamarkaana kala ah Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo sidoo kale xildhibaan Yaasiin Cabdullaahi Farey oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo kala hadlay islamarkaana mid walba hiba uu cabiray aragti haba yaraatee aan ku dhisnayn xaqiiqada sida ay aaminsan yihiin dadka arrintan sida dhow u darsayay. Yaasiin Farey waxa uu sheegay in aan la haynin xog rasmi ah oo ku aadan qaabka loo dilay, cidda afduubtay iyo sidoo kale halka sida rasmiga ah loo geeyey gabadhaas muddada bilaha maqan, halka uu Fahad Yaasiin hoosta ka xariiqay inuu og yahay halka laga afduubtay, meesha lala aaday iyo sidoo kale cidda gudbisay iyo cidda ugu dambeyntii gacanteeda ku qaarajisay. Hooyada dhashay Ikraan Tahliil Faarax, Qaali Guhaad ayaa dib u bilowday dadaaladeeda iyadoo madaxda dowladda Soomaaliya ka dalbatay in si degdeg ah kiiskaas dib u eegis lagu sameeyo. Xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida oo horey arrintan go-aan kaga soo saaray ayaa wajihi kara fadeexad weyn maadaama arrintan ay tahay mid dib isku furfuraysa sida kiiskii uu sidan oo kale ugu eedeysnaa Xasan Xanafi oo ahaa shakhsi shabaab u qaabilsanaan jiray dhinaca dilidda oo wariyaasha, kaas oo dalka dibaddiisa ugu dambeyntii laga soo qabtay laguna maxkamadeeyay gudaha magaalada Muqdisho oo ugu dambeyntii maxkamaddii iyo go-aanadeedii maray. Si la mid ah ayay dalbanayaan in Fahad Yaasiin iyo xulafadiisana baaris lagu sameeyo oo la kala caddeeyo in ay dembi la-aan yihiin iyo in kale. Dowladda Kenya ayaa ku gacan saartay dalab kaga yimid dhinaca Soomaaliya islamarkaana ka koobnaa laba arrimood. Kenya ayaa ka cagajiiday in ay si rasmi u carabaabto go-aankeeda ku aadan fasaxidda duulimaadyada sida tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi iskaga goosha, iyo sidoo kale in Kenya ay sidoo kale fududeyso in ganacsiga iyo isdhexgalka bulshada ee labada deegaan ee dariska ah uu noqdo mid si rasmi ah loo ixtiraamo. Waxay Kenya hoosta ka xariiqday in kheyraadka dabiiciga ah ee ku jira badda uu noqon doono mid ay ka faa'iideystaan dadka Kenyaatiga marka laga hadlayo dhinaca Soomaaliya kheyraadka kaga imaanaya sida in qaadka ay ku bedelato kalluunka iyo agabyo kale oo gudaha waddankeeda loo beecgeeyo. Kenya sidoo kale qodobka ugu muhiimsan ee labaad ee ku gacan saartay ayaa ah inay si rasmi u aqoonsato go-aankii maxkamadda cadaaladda adduunka ee qaybo ka mid ah biyaha badweynta Hindiya oo Soomaaliya loo xukumay. Arrintaas oo ay tilmaantay inaan haba yaraatee ayna ixtiraami doonin oo aynan aqoonsan doonin, kana gaabsadeen mas-uuliyiinta loo soo bandhigay inay si rasmi ah arrintaas ay u caddeeyaan mowqifkooda. Kenya waxay doonaysaa oo kaliya in mar una ay albaabka u furto qaadkii tirada badnaa ee ay Soomaaliya u beecgeyn jirtay, halka ay doonayso in laga saaro meesha midka Itoobiya ee muddada bilaha badan ah sida tooska ah loogu fasaxay magaalooyinka kala duwan iyo suuqyada ganacsiga qaadka ah ee gudaha Soomaaliya. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa magacaabay guddiga doorashada iyadoo xiisadda ka jirta Somaliland ay cirka isku sii shareerayso, iyadoo aan la gaarin wax xal oo rasmi ah oo hor istaagi kara dibadbaxyadii ka socday Somaliland iyo qabanqaabadii ay ku jireen mucaaradka, sidoo kalena aan la gaarin heshiis iyo isfahan dhab ah oo ku aadan waqtiga doorashadu ay qabsoomayso. Ayaa madaxweynaha waqtigiisu u dhammaaday ee Muuse Biixi Cabdi waxa uu hoosta ka xariiqay inuu magacaabay 7 xubnood oo ah guddiga doorashooyinka, kuwaas oo qaarkood horey ay magacyadooda usoo gudbiyeen xisbiyada mucaaradka. Muuse Biixi ayaa ku adkeysanaya in doorashada iyo sidoo kale qabanqaabadeedu ay tahay mid gacanta dowladda ku jirta, islamarkaana xukuumaddu ay wajahayso. Arrintaas oo ay xisbiyadu ku tilmaameen inay tahay mid qarayska tuurnimo oo la doonayo in lagu marin habaabiyo hanaanka dimuqraadiyadoonka iyo isbeddelka ay ku haminayaan xubnaha mucaaradka iyo shacabka horey usoo doortay madaxweyne Muuse oo hadda danaynaya in codkooda ay ku badbaadiyaan mustaqbalkooda ama inay gacmahooda ay ku badbaadiyaan Somaliland oo hadda qarka u saaran xaalad adag. Madaxweyne Muuse ayaa sida la xaqiijiyay waxa uu iska moosay islamarkaana uunan haba yaraatee ixtiraam iyo ihtimaamba siinin wadahadallo toos ah oo la galo hoggaanka xisbiyada mucaaradka, isagoo hoosta ka xariiqay in xukuumaddu ay wajahayso hawsha doorashada marka waqtigeedii la gaaro ama ay caddaadaan
in ay arrimo kala soo baxeen oo farsamo ahaan, tala ahaan iyo sidoo kale dhaqaale ahaan intaba u baahan in wadatashi iyo wadaxaajood laga galana ay tahay in xilligaas xukuumadda iyadoo ay soo bandhigto. Inta ka horeysa hawsha doorashada iyo waajibaadka saaran xukuumadda ayuu sheegay inuu noqon doono mid la dardargeliyo, taas oo xubnaha mucaaradka ku abuurtay shaki weyn. Maxaa ka jira in maanta baarlamaanka uu hortagayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo? Qorshuhu waxa uu yahay in madaxweyne Farmaajo uu kasoo hormuuqdo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya fadhigooda ay ku yeelanayaan magaalada Muqdisho, gaar ahaan xarunta Villa Hargeysa. Waxaa si toos ah loogu dhaarinayaa inuu ka mid noqdo golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya, isla markaana uu qaato kursigiisa xil sharafeed ee ku aadan maamuuska madaxweyne talada si nabadgelyo ah ku wareejiyay. Madaxweynuhu waxa uu helayaa sidoo kale in baarlamaanka hortiisa lagu dhaariyo oo ka mid noqdo xildhibaanada qaran, kaas oo aan ahayn xildhibaan hanaan beeleed ku yimid ama 4.5 awood qaybsiga beelaha kaga yimid, balse noqonaya xil sharafeedka labaad ee jiri doona inta dowladdan ay dhisan tahay. Inkastoo madaxweynihii hore uu mar kale dib uga mid noqday siyaasadda oo kursigiisii uu bannaan yahay, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho ka socday dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo looga soo horjeedo. Waxaase dadka qaarkood ay tilmaamayaan in xildhibaanadu ay qaarkood kasoo horjeesteen in si rasmi ah loo dhaariyo, ayaga oo xildhibaano kasoo jeeda Jubbaland ay ku tilmaameen in dembiyo kala duwan uu deegaankooda ka garay, sidaa daraaddeedna ay mudan tahay in maamuuska xayuubin lagu sameeyo. Guud ahaan daawada intaas waxaa ku dhan warkii oo kaaga imaanaya dhambaalka wararka. Daawada haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar channelkan, sidoo kale hilaawin in aad noo reebtid taladaada ku aadan wararkan tabintooda iyo tayadooda intaba. Nabadgelyo.